maanta oo ah 12 Oktoobar waa sanad guuradii 66aad ee calanka Soomaaliya 12 Oktoobar waxay ku beegneed sanad guuradii 66aad ee ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay ee la soo bandhigay naqshada calanka Soomaaliyeed la iskuna raacay maalintan oo ah maalin ku weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed waa maalintii la go'aamiyay nooca uu noqonayo calanka Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 12 Oktoobar 1954 waxaa naqshadiisa hal abuuray Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liiwaan markii uu hindisay naqshada calanka wuxuu marxuum Maxamed Cawaale Liiwaan dood dheer la galay dad badan oo su'aalo ka weydiiyay astaamaha calanka waxayna doodda ugu weyneed ka imaanaysay dhanka gumeystihii oo isaga markii hore diiday calanka buluug markii loo soo bandhigay calanka ururka SYL dood dheer kadib waxaa la isku raacay muxaafad iyo mucaaradba calanka uu soo bandhigay Maxamed Cawaale Liiwaan Cabduqaadir Cali Boolay oo ka mid ahaa halgamayaashii SYL ayaa yiri waxaan nasiib u yeeshay in aan goobjoog ka ahaa xilligaasi oo lagu soo bandhigay xarunta dhexe ee SYL waxaana cod buuxda la isku raacay in la qaato naqshada uu soo bandhigay marxuum Maxamed Cawaale Liiwaan hase yeeshee markii loo geeyay maamulkii Talyaaniga ayaa diiday oo ku tilmaamay inuu u eg yahay calanka dalka Zaire iyo kan jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa United Nations-ka sidaa daraaddeed aan la ogoleen calan dal uu leeyahay maamulkii Talyaaniga wuxuu ku adkeystay hindisihii uu soo bandhigay marxuum Maxamed Cawaale Liiwaan in aan la qaadan karin isagoo qiil ugu dhigaya in uu u eg yahay calanka dalka Democratic Republic of Congo oo loo aqoon jiray Zaire balse Maxamed Cawaale Liiwaan wuxuu Talyaaniga u sheegay in labada calan aanay isku mid ahayn sababtoo ah calanka dalka Zaire horay loo oran jiray xidigta ku dhaxtaal waa mid dahabi ama huruud ah sidaas daraaddeed dood dheer kadib iyo wada tashi fara badan kadib maamulkii Talyaaniga oo xilligaasi maamulayay koonfurta Soomaaliya wuxuu ogolaaday in la qaato calanka buluuga ah xidiga cadna dhexda kaga taalo halgan dheer kadib ummadda Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen una suurta gashay in ay yeelato calan aad u qurux badan kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadeed ee ah in la helo Soomaali midaysan calanka qaranka Soomaaliyeed oo maanta 65 sano jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo la soo galay halgankaas oo hoggaanka ay u hayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xisbiga SYL kuwaas oo halgan qaraar la galay gumeystayaashii isu soo baheysay ummadda Soomaaliyeed cadawgaagu uu jabi indigaaga galiyo cawaara waxa ciisho